waxaan rabaa in aan update-kii kala qaado sidii xaaladda coronavirus marayo inaan idin soo jeediyo xalay caseska xaaladaha waxay marayeen 25 shalay kambiyoonkii la qaaday sambalkii la qaaday iyo maanta guud ahaan waxay isku ahaayeen 55 ruux ayaa laga qaaday sambal 32 ayaa waxay noqotay positive shalay iyo maanta kaliya marka lagu daro 25kii oo shalay 57 ayay noqonaysaa iyo 3 case oo shalay looga dhawaaqay Somalia waxay noqonaysaa marka tirada la isku daro 60 xaaladood oo coronavirus oo Soomaali ku jira laba qof waa laga gooriyay Allah u naxariisto laba way ka caafimaadeen inta kalena waxaan rajaynaynaa haddii Allah idmo in ay caafimaad Ilaahay u siiyo sidaad la socotaan cudur faafka waxay ku jira si xawli ay u socdaan bulshada waxaa laga yaabaa dad badan oo qabo oo aan soo raadsanin inay isbaaraan ay jiraan waxaan kula talinaynaa dadka in ay guryaha joogaan sideedaba waxaa la baaraa qofka marka uu qabo qandho ilaa iyo 38 ama ka badan inay qofka neef qabadka oksijiinka uu ka yaryahay neefta ay dhibayso iyo qofa labada calaamadood ugu horeysa haddii uusan qofka qabin waxaan kula talinaa labada calaamadood waa qandhada 38 iyo ka badan iyo qofta ay neefta qabanayso neefta dhibayso oksijiinkiisu uu ka yaryahay 94 labadaas haddii uu qofka qabin waxaan kula talinaa qofka inuu guriga joogo oo isdhowro haddii lacala xaaladiisa ay xooga isbedesho oo inuu doctor markaas la soo waco numberka uu soo waco ama isbitaalka uu u tago kadibna maaragtay la kaalmeeyo oo isbitaalada la geeyo haddii alle waxaan ku waaninaynaa dadka mar labaad in guryaha la joogo la isdhowro la isxakameeyo gacmaha si fiican loo dhaqo nadaafadda lagu dadaalo meelaha ciriiriga la iska dhowro ilaahayna aan barino cudurkan nafadiisa iyo dadkiisa ilaahay inuu